واتهاي مدن هذا كسر واتو إذا عدا يوليبا دقيستيش أنت ضبطنا يا أديك يا أو ينكلا بيحدونا ما دام وقتي الله السياسة وجبجبية هاي وبريتو كلي إيجار كنت هاي إننا بنك يجا سدان ولا شيء قبل سؤال بدل ما قبضونا أديك دقيستيش وحبها بنويسة وحبها يجعلهم إني نعم كذا أجابكتان هدو مركزية بكو قدروا وتقولوا بسم الله ولا الأساس شيكتي وقتي هذا السؤال جري ورليه وسكت مان هيا بري أي سحر مايا أحدي سنين تنو حقيبين إن شاء الله تعالى إن أي نقطة وقتي لك لسفر سنة إجنتياشي شغاليه هنا ماركتي إن أي بي سي ومعمولة هي دور الشدة أي تجاين جوبيه ماركتي لو ترجع لنا كشقيان ماركا إن ولو نوع وإحنا عاوز نشوف الديمد وحويان كامبين نفت الكيسي ورليه عن وذي واحد بدن بانك فهم ومروا البانتجا إن دتكي وحي هرار أي دولدي أنسوها يكون هذين وإيش شيئين وحيابا أي ربين إن عن حوك سرنا أيضا ماركتي وإيش شيئين واحد بدن بان كلية كسر فهمي إن مركا عاو حنا نشوف ده إن ماركتي ورتنا بوان إن أنا شهر وجر وح أنت لسوق جيدة واسكسر دماتي وحن لعدينا إن شاء الله ثلاثة دي وما أنت أي تاي جماعة وحين رحي وحويان سبدي أحد سنين كان بين بري أي ودبيش برسدي ودبي أي قفل بريسة من سنة قريبة إن شاء الله تعالى مركا وحن الشيء يا الروجر إزدبجوركي إيو بوكتي إيو أوليه إيو هذا الكبرنا ودمان وحا اسكسو هيري الدونة نينكي أبرئ السعوديان إيو بولشدي go-aanka ay qaadanayaan markii ay ku jiraan goobta lagu codeynaayo ama qofkii 1 daqiiqo ha ku qaato ama 2 daqiiqo ha ku qaato ama 3 daqiiqo ha ku qaato waqti uu ku qaataba oo muddo aad u yar ah wuxuu saameyn ku lahaanayaa noloshooda 5 sano soo socoto marka in aan wixii xiisa lagu go'aaminin in aan lagu go'aaminin keli waxyaabaha barsada kala ka dhahay inta badan habartay oo kana xiga in aan lagu go'aaminin macnaha shilimaad yar oo waqtigan hadda xiisaa jirta qaf la siiyey amis haatan lagu siiyey maxaa la yiraahdaa feelka lagu jiro oo lagu sugayo maxaa la yiraahdaa doorashada codkan la rido oo sharci ahaan runtii ah wax sharci ka baxsan oo dadkii go'aankoodii ay ku saleeyaan in ay rabaan dawlad shaqeynayso ay firiyaan mustaqbalka carruurtooda iyo carruurta ay dhalayaan oo maamul xumadan waxyaaba barkood faa'iidadeedana waa wax maaragtay carruurtooda kaliya in carruurta ay dhalayaan ay ka faa'iidi karaan runtii maamul xumada imaadana oo waxa maaragtay carruurtooda ay dib kaga imaan karo marka tawata walaalayaal waxyaabo badan ayaan ballan qaadnay anaga haddaan nahay team jiir caato oo ODM ku taagan aniga walaalkii Axmed Maxamed Cabdi horta waxaan u ballan qaadaynaa reer Wajeer insha Allah taala wax walba oon campaign ku ballan qaadnay maalinta ugu horeyso hadduu Ilaahay noo sahlo xafiis aan galno ilaa iyo maalinta aan ka baxayo in aan isku dayno in aan maaragtaan fulino wax walba oon ballan qaadnay waxyaabo badan aan ballan qaadnay dhanka biyaha waxyaabaha aan ballan qaadnay waxa weeyaan in aan saxno biyaha magaalada Wajeer waxaan meel walba ka sheegay barnaamijkii oo bangiga adduunka oo waagi ka soo shaqeeyay oo ilaa hadda aan la hirgelinin iyo biilaanta magaalada Wajeer ka jirto afar meelka magaalada Wajeer barnaamijkaasi inaan meel ku sinno oo magaaladan biyaheeda iyo musqulaheeda aan saxno oo shantan ay noqoto shantii Wajeer ay heli lahayd biyo ay ku degto waayo magaalada Wajeer haddii shantan biyo ay heli waaydo laga yaabo in maaragtay culays weyn aad ka imaado oo maaragtay hantida iyo rasmaalka magaalada la gelina aan laga faa'iideysan aysan noqonin
marka anagoon hilmaamaynin tuulooyinkii meelo fara badan oon marnay oo weli ceelal u baahan ayaa jiro meelal badanna waxaan ugula mahadiyey ceelashii la cabay in ay ahaayeen kuwa waqtigeyga la qoday oo meel walba oo qaar ba aanba xasuusaninba hataa aniga oo magaalada markii dhex tago si aan qodbada bilaaban liileeyahay amase markii aan codsi aan dhibto oo lii jawaabay liileeyahay magaaladan waxay ku degan tahay ceelka adiga aad qoday dhankii caafimaadka haddaan ka hadlo waxyaabaan ballan qaadna waxaa ka mid ah in istaalkan weyn oo wajeer oo hadda maaragtay levelka afraad jooga level 4 wax la yirahda aan 12 bilood gudaheed aan kaga dhigna level 5 oo general hospital aan kaga dhigno oon ballaarino istaalka isaga oon qaybo cusub u yeelno oo theatera cusub aan u yeelno oon u yeelno maxaa la yirahdaa ayto wadiyaal cusub aan u yeelno oon u yeelno waxyaaba oo maaragtay bulshada qaarkeed ka mid ah ay aad noo weydiisteen sida kenyaanka kale waxaa aad ugu daran meel mochari ah marka oo istaalkan istaal caalami aan ka dhigno insha allahu taala 12 bilood gudeed waxaan ugu qaadataba aan istaalkan ka dhigna insha allah level 5 hospital waxaa kaloo ballan qaaday in aan shaqo siiyo sida ugu dhaqso badan bila gudaheed waxaan isku daya weli 30 maalin mise 60 maalin ugu horeeya gudaheed kalkaaliyaal caafimaad wixii waddanka jooga oo waraaq haysto kulligood oo istaal walba oo shaqaalaan u xiran la furo bidnillaahi alkariim istaal walbana muddada gudaheed daawooyin la geeyo oo meelo badan istaalli way dhisan yihiin shaqaalii waqtigeyga shaqeynaya way ka tageen meel walba waxaa iga lahaa istaalka adigaa dhistay waqtigaada shaqeeda waxaan ku haysanay daawo shaqaale ayaa jooga hadda shaqaale ma joogaan hadda daawo ma laha wixii hadda aan haysan horta aan ka shaqaysiino si ugu dhaqso badan waxaa kaloo ballan qaaday in aan dadkii aan gelino NHIF oo caymis NHIF aan gelino sanadka ugu horeynana aan ka bilowna inta 50 jir ka weyn qof walba oo rawajeer oo 50 sano jir iyo wax ka weyn in aan gelino NHIF 5 sano gudaheedna aan marti bulshada aan ka dhamaystirno insha allahu taala waxaa kaloo ballan qaaday in aan ka shaqaysiiyo goobta aan horaan dhisnay baqaarka oon rabnay in aan ku kaydino daawooyinka loo baahan yahay 6 bilood oo la yiraahdo wajeer medical stores oo ku yaala magaalada darafteeda marka haddii dhanka tacliinta aan wax ka sheego waxyaabaan ballan qaadna waxaa weeyaan in baasiri aan soo celino in aan xal aan isku dayno in aan u helno baahida ka jirta macallimiinta iskoolada sababtoo ah meelo badan oon tagnay dadki waxay ka sheeganayaan iskuul oo 8 kalaas qabo oo hal macallin kaliya uu joogo inta badan meelo barkood waxay ku baxsadeen dadkii annaga aan horaan u qorno ECD-ga ayaa baraya iskooladii primary-ga waxyaabaha aan ka fikirsana waxaa weeyaan in college macallimo meeshan laga furo sababtoo waxaan aaminsanahay ilmo fara badan oon awoodin in ay u safraan meel kale oo college macallimo ay galaan haddii college loo soo dhaweeyo in ay gali karaan oo muddo yar kadib aan heli doono macallimiin fara badan oo la qoro sababtoo hadda TSC hay'adda macallimiinta qorta hataa waxay leedahay macallimiin ka soo jeeda waqooyi bari oo qorto dhibka horaan wuxuu naga haystay dhanka caafimaadkana maanta boqolaala laga yaabo 500 ka badan oo kalkaaliyaal oo magaalada wajeer joogaan oo shaqalaan in ay jiraan waxaana ku timaadaan aaminsanahay in aan waagi aan sameynay college-ka maaragtay lagu barto kalkaaliyanimada dhakhtarka marka tacliintan anagana qusayso oo polytechnic iyo naasarigana in xoog la saaro naasariga annaga waqtiga annagii waxaan samayn jirnay wax walba u baahan yihiin buug iyo qalin ilaa iyo waxyaabaha maaragtay qalabka carruurta waxa lagu baro annaga soo gadi jirnay raashiin baan iskuulaha geyn jirnay waayo naasariga waxa waaye meesha cunuga uu ku baranayo iskuul tegitaan
marka haddii aad cunug kala kulmo iskuulkii dhib badan inaad siga cara laga yaaba in maaragtay la soo dhaweeya ay u baahan yihiin carruurtii markii maaragtay nasriga la geenayo idan waan ka shaqeynayna insha allahu tacaala baasarigana saan sheegay waxyaabaha aan ka fahmay hadda campaignka waxaa waaye in dadka minority-ga oo laga tira badan yahay aysan u helaynin baasariga si looga tiragalay annaga waagi waxaan ku kala qaybin jirnay wardkina inta badan kama soo galaan maaragtay MCA lagama soo doorta dad tira yar marka waxaan istusinay dadka tirada yar in aan lacag gooni u goyna ayaan ku tashanay walaalkii Axmed Cato oo ka imaaday cabashada baasari laanta haysato dadka laga tira badan yahay walaalayaal ballanta kale oon aad u qaaday oo meel badan ka sheegay waxaa weeyaan in aan caawin doono madrasooyinka iyo dugsiyada oo ayagana xarumo tacliin laga barto awgeed aan caawin doono in culummada aan ayagana maamulka qayb ka soo gelin doono oon u ogolaan doono nafaas ayagana maaragtay ay dowladdii kaga faa'iidaan oo in ugu faa'iideeyaan bulshadii waxyaabaha aan maaragtay aan rabo inaan kala shaqeyno waxay kamid tahay madrasooyinka taxfiidka goobaha lagu hayo agoomaha oo orphanageska la yiraahdo maxaa la yirahdaa isqa qabsiga oo bulshada ay rabto inay ku xaliso si sharciyeysan shay sharci ah waxaa kaloo ballan qaadnay goobaha ciid lagu dukado maaragtay qabuuraha kulli inay nagala shaqeeyaan insha allahu tacaala waxaa kaloo ballan qaadnay in aan qasnad yar sameyno oo dadka tabariyda oo qaan gaaray oo maxaa la yirahdaa ayto aan awoodin in ay guur maaragtay ay samaystaan aan wax ka siino oon ku kaalmayno guurkii insha allahu tacaala waxaan aaminsannahay irsaaqadii ayaad ilaahay u furaa markii maaragtay guurka ay isugu imaadaan xalaalkee marka oona waxyaabahana aan hoos keenno wasaaradda gooni insha allahu tacaala waa tahay arrin badan ayaa ka dhawaajisay waxaan eegaynaa dhegeystayaasha xagga baraha bulshada weliba si gaara facebooka su-aalaha sida aadka ugu soo gudbinaya waxaa kamid a waxyaabaha ay kusoo weydiinayaan ma kordhinaysaa lacagaha wararka la siiyo 25 milyan insha allah walaalayaal horta waxaan aaminsanahay insha allahu tacaala oon ka rajo qaba aniga si weyn in dowladda Raila Odinga hadda ay soo gasho saan rajaynayo lacagaha hoos soo diga la yar badan doono insha allahu tacaala saan horaan u sheegan lacagaha aniga aan ka bilaabay aad bay u yaraayeen 5 bilyan aan ka bilaabay 200 milyan haddana wax tan ku dhow ay maraysaa marka horaan waxaan u sheegay in lacagaha loogu tiragalay developmentiga ama waxyaabaha horumarka aan u kala qaybin doono 3 nooc tu ward lagu bixiyo tu kursi baarlamaan lagu bixiyo iyo tu barnaamijyo weyn oo county u dhaxay marka lacagaha ward development fund waan kordhinayna insha allahu tacaala nidaamkii hore ka duwan ayaan u sameynaynaa oo fund in aan ka dhigno oo maxaa la yiraahdaa ayto si hadda waxyaabihii dhacay aysan dhicin oo sanadka wixii la bixiyay ay u gudbin sanad kale lacagteedii oo sanad walba wixii dad ay qabtaan isla sanadkii asaga ahaa maxaa la yiraahdaa ayto lacagtoodii ay helaan wax dad ku dhacma aysan jirin 25 runtii ka badan aan ward la gelin jirnay inkastoon ugu yeeri jirin ward development fund in aan ka badan karno waan aaminsan insha wata waxyaabaha kale ee dhegeystayaasha weydiinayaan waxaa kamid ah sideed u wajahaysaa koronto la'aanta ka jirta magaalada walaalayaal laba nooc tan ugu horeysa waxaa weeyaan horta in aan dadkii inta badan aan tusno in ay maaragtay solar samaysan karaan waxaan rabnaa insha allahu tacaala xafiisaha dowladda meel ay yihiinba maaragtay in aan solar aan saarno midda labaad korontada hadda waxay hoos imaadaa runtii hal company waxaa ka jira wax la monopoly waxaa waaye waa bidaaca ay gadayso keliya oo gadaya keliya hal shakhsi mise hal company waxaan aaminsanay companyga asaga haddii aan maaragtay la fadhiisano in horta waqtiga hore oo short termka oo aada u dhow ay noogu soo dari karaan maxaa la yirahdaa ayto mashiimaha meesha yaallo oo
macnaha korontada lasoo saara ay kordhin karaan. laakiin waxyaabaha aan rabo aan aada ugu rabo in uu usoo galo Raila madaxweynenimada waxa weeyaan in shantaas sano gudaheed insha allahu tacaala sida ugu dhaqso badan wajeer lagu soo xiriiriyo gridka ama isqabsiga oo korontada oo Kenya ka jira. hadda waa ka baxsana magaalo walba oo koronto leh waxa weeyaan generator yar oo diesel ayaa ka jira ama se laga yaabo in ay ka jirto maaragtay wax yar oo solar iyo generator la isku daray, laakiin in nagula xiri kara maaragtay korontada Kenya hadda ilaa hadda gaari soo gaartay. waxaan aaminsanahay shantii sane oo korontada lagu keeni lahaa wajeer laguna dhaafin lahaa ilaa Mandera lagu geeni lahaa inay tan tahay. sidii horaan aan u sheegay intii yar oon la taliyaha wasiirka maaliyadda Kenya aan ahaa waxaan aada ugu soo shaqeeyay wadadan si loo ilaaliyo iyo Mandera in lacageeda meel soo saaro. waxaan aaminsanahay shantan soo socota inay noqonayso shantii wadada laga qaadi lahaa Isiolo oo la geeni lahaa ilaa Mandera oo lacageeda meel baan soo saarnay. tan oo korontadana waxaan aaminsanahay haddaan u shaqo tagno sida ugu dhaqso badan, khaasatan hadduu soo galo ninkii Raila Odinga, in sida ugu dhaqso badan nagula xiri kara gridka amase isqabshadaas isqabatay oo xiriirkaasi oo korontada Kenya aan ka mid ahan oo korontada keliya ay naga danto markii Kenyada kale ay ka danto insha Allah. markaan u imaano arrimaha national gridka ama korontada waxaan ognahay in madaxweynayaashii waa madaxweyne Uhuru Kenyatta uu labadiisa maamulba uu markii 2017 iyo waliba 13 ay kamid ahayd waxyaabaha uu waqooyi bari amaba wajeer markay imaadaan ay ballan qaadayeen waxyaabahaasi madaxda hadda ololeynaysan waa la mid. ma u malaynaysaa in wax badan ay iska bedeli doonaan ama waxay noqon doontaa wax aan wax badan laga qaban arrimaha korontada? runtii waxaan aaminsanahay sidii munaasiyasiyaasha aan soo dooranaynay khaasatan kuwa baarlamaanka aan usoo dooranay ay ugu doodayaan waxyaabaha kaleeto haddii maalin walba ay dood kaga soo jeedin lahayeen arrintan in ilaa hadda xal loo heli lahaa. marka haddii la helo dad oo maaragtay arrintan xoojiyo waxaan aaminsanahay in wax laga qaban karo. anigana waxaan aaminsanahay haddii dowlad Azimio oo weli Raila ODM ay soo dhalatay nationalka, haddii aan governor noqdo anigoo shaliba runtii ahaa ku jira madaxda gabanayaasha council of governors, waayo waxaan council of governors u ahaa maaragtay guddoomiyaha qaybta dhaqaalaha iyo qorsheynta. marka fursad oo laisugu imaado wax la yirahdo summit oo isu imaadaan gabanayaashii madaxweynaha ayaa jiro. madaxweynahana waa madaxweynahan maaragtay muddo isla soo shaqeynay Raila madaxweyne noqdo oo xisbigiisa maaragtay inaad ku xisaabtamo aan nahay. waxaan aaminsanahay in aad ii fududaynayo arrimaha maaragtay korontada insha allahu tacaala oo national ahaan. waxyaabaha kale dhegeystayaasha su-aalahooda ayaan ku badannahay. pending billska ayay wax kaa weydiinayaan, waa arrin si aad ah qandaraasleyda ay aada uga cabanayaan. maxaa kaaga qorshaysan ayaa la weydiinaya. waxyaaba aan qortay ay ku jirtay waayo qeybihii hore waxaan uga hadlay 4 shay keli, waxyaaba badan ay dhiman. pending billka horaan basaan sheegay wixii lagu leeyahay waa dowladana sharci ahaan waa shaqsi, waxay shaqsi ku tahay iidaa qof maxkamad geyn karto oo xaqeeda doonan karto dowladii, iidana maxkamad waa la geyn kara xaq waa laga doonan karaa. dowladda haddana waxaa weeyaan wax isdhexlawa oo waxaa la yidhahdaa perpetual succession. intii dowladda ay jirto maalin walba sharci ahaan waa isdhexli. macnaha waxaan ka wadaa dowladda cusub waxay dhexli doontaa hantidii iyo raasmaalkii dowladdii hore, sidana haddana waxay u dhexlaysaa deynteeda iyo barnaamijyihii dhexda u jooga. marka pending billka sida ugu dhaqso badan ayaan maaragtay aan u dhexgalaynaa oona maaragtay aan u bixinayna insha allahu tacaala. bulshadii ay pending billka maanta waa bulshadeeni wixii sax ah sida ugu dhaqso badan. weli dadka tabarayda inaan ka bilownaan jecelnahay oo maaragtay waxyaabaha maaragtay sida hadda war development fund oo kaleeto sameeyey oo lacag ka maqan tahay, dadka classroomska dhisay, dadka istaalaha dhisay, dadka dowladda wax u keenay oo supply wax u sameeyey. waayo waxaan rabnaa lacagtaas sida ugu dhaqso badan in ay bulshada u gasho insha Allah. waa tahay biyaha iyo caafimaadka waa waxyaabaha ay aadka ugu soo celcelinayaan dhegeystayaasha dhanka iyo baraha bulshada ama Facebook si gaara su-aalaha ugu soo qoraya.
biyaha iyo weliba arrimaha bulaacadaha ama sewage-ka boqolka maalin ugu horeysa dowladdaada ahmiyad gaara ma u leedahay mashaariicda aad doonaysa ee horumarineed inaad xilligaaga haddii ilaahay kuu qadaro aad wax ka qabato barnaamijka socday oo World Bank oon horaan sheegay oo ahayd in lagu xiro lagboor biyo xireen lagu sameeyo lagboqol biyo xireen lagu sameeyo 16 ceel magaalada agagaarkeeda lagu sameeyo 100 maalin laguma fulin karo laakiin 100 maalin waxaan ku sameynaa in aan maaragtay la fadhiisto World Bank anigoo la taliya arrimahooda kala ahaa wasiirka maaliyadda oona aqaan qof walba oo jaga sare ka haya xafiiska World Bank oo Nairobi iyo Washington oon sidii barnaamijka lagu dadejin lahaa aan maaragtay kala tashado insha Allah taala arrinta waxay arrinta caafimaadka arrinta caafimaadka waxyaabaha aan sheegay inaan boqolka maalin ugu horeeyaan sameynaa waxa weeyaan in qof walba oo kalkaaliyanimo haysto dhowr boqol inay yihiin waa lii sheegay aan shaqo geliyo istaal walba oo xiranna aan furo istaal walbana uu daawo u lahado insha Allah taala sewage-ka wax kale ku jira sewage-ka waxay ku lifaaqan tahay arrintaasi oo biyaha sababtoo barnaamijkaasi waxa weeye water and sewage saan horaan u sheegayna barnaamijkaasi waqti xaadirkaanba in la hirgeliyo ay ahayd dad baa South Africa aan u dirnay oon tababarnay marka waxaan aaminsanahay barnaamijkaasi boqolka baan ugu horeyso sidii ugu dhaqso badan oo loo dadejin lahaa in aan fiirno horta wixii maaragtay meel meeshii wax jiraan lacagihii meeqa laga isticmaalay meeqa soo hadhay oon kala shira bangiga adduunka iyo wasaaradda maxaa la yidhahdaa biyaha oo nationalka oo lacagahaasi waa lacaga wajweska ku imaaday lacaga kambuniga aan sameynay loo ogolaaday waaye interview aan u galnay kambuniga la fiiriyey awood inuu leeyahay maaragta aad ku wargeliya la arkay awood inuu qaba ayay ahayd marka qorshahaasi ayaan u haynaa waxaa kale oon boqolka maalin gudihii aan ku sameynayna in aan dayactirno bohol walba oo halawsan waxaan yeeli karno ku walba oo generators ka maqan inaan geyno ku walba oo qalab kale aad ka maqan inaan geyno oon ka shaqaysiino si reer miyigana ayagana insha Allah taala aan ugu fududeyna ceelasha watahay arrimaha ceelasha biyaha haddii aan kusii yaranagaan waa su-aal aniga ku darayo oo ah roobabka xilli roobaadka oo kale markay roobabka ay da'aan biyaha inta badan way dhaafaan oo reer miyiga kama faa'iidaystaan biyo xireenno aad u badan ma jiraan taa ma ku qorshaysan tahay inaad goobo biyo xireenno aad hirgeliso waagii hore waxaan sameynay 72 maxaa la yidhahdaa biyo xireen oo la yidhahda pans ma aha yani wara waaye ma aha dhaam weyn ma ahayn laakiin qaarkoodna runtii waa wax oo biyo haynaya ilaa 2 sano waayo qaar baan xasuustaa oo ilaa 100 mitir dhirin u ahaa hoosna u qodnaa ilaa iyo 6 mitir marka oo dad beeruhu isticmaalayeen qaarna tuulooyin baa maaragtay la cabaayay midda hadda aan leenahay lagboor alla xiraa in lagboqol ma aha war ma aha waxa weeyaan dhaam oo simiito maaragtay la saaray biyo meelo badan oo waxaa jira ceelal markii laga qodo biyo aan laga helaynin lana degan yahay wax kale u samayn karta ma laha waa inaad biyo usoo jiido meel fog usoo jiido waagii meelaha aan biyo usoo jiidno waxaa kamid ah diif oon kaga soo jiidnay 18 kilomitr waxaan bilownay inaan kaga soo jiidna meesha la yiraahda tarbaja 43 kilomitr magaalada Salmaan waxaan kaga soo jiidnay Hajaawa meel la yiraahda Boosika oo u jirta ilaa 7 kilomitr waxaan kaga soo jiidaynay lagboqol meel la yiraahda meel oo shiinaha ay ka sameynayaan saliid baaritaan marka meelo fara badan oo biisa u soo jiidayna qorsheedna u jira jirto marka biyo xireenna waan sameynaynaa beer iyo xoolo wax loo isticmaalaba magaalooyinkana kuwii aan weli nasiibkooda ka qaadin ceel baa nasiib ka qaadayaan kuwii la degan yahay oo biyo lahaynna meesha ugu dhow oo biyo looga heli kara inaan ugu soo jiidan sameynaa insha Allah taala because magaalo dhisan lama burburin karo lamana maaragtay laguma qasbi karo dadkan ay ka guuraan waa tahay dhegeystayaal waad maqasheen Axmed Cabdilaahi Jiro markaas studio haynu kula sugan inta badan barnaamijkiisa ama qorshayaasha uu hayo 3 bilood ay ugu horeyso boqolka maalin maamulkiisa haddii uu kusoo baxo kursiga uu 9 Agoosto goobayo waxyaabaha uu markaas reer wajeer u hirgelin doono dhegeystayaasha ayaan sida hore u sheegaba inta badan fursada u siin doona kuwa baraha bulshada nagala socda
iyo kuwa qadadka tooskaba idaacadda markaasi ee u dhegeysanaya ee qadka telefoonka soo haleeli karo waa eber 7 ayaa dhegeystayaal su-aashaad jeceshahay caawa inaad weydiiso mudane axmed cabdilaahi jiir oo stuudiyaha nagu heliya bal dhegeystaha ugu horeeyaan siinaya soo dhowla waa tahay ma hayo dhegeystahaasi waxaan jecelahay inuu dib usoo haleelo mar kale bal dhegeystaha kale ee ku jira soo dhawo waan ka xumahay dhegeystahaasi isaguna qadka ayaan u suuro gelin bal xigaha ku jira soo dhawo waa tahay aad baan ugu xumahay waxaan dareemayaa inay cilad xagga jirto waan ka raaligelinayaa dhegeystayaasha dhegeystow mar hadduu qadka kuu fasaxmo waxaan kugula talinayaa inaad fursadaasi ka faa'iidaysato maadaama qadka uu yahay mid aad ciriiri u ah waa tahay waan ka xumahay ma hayo isna dhegeystahaasi dib inuu usoo haleelo ayaan mar kale rajeynayaa halo jerefe وعليكم السلام ورحمة الله وصحيح